السلام عليكم ورحمة الله أصحابتي إذا سيتيهين maanta waxaan rabaa inaan kaga sheekeeyo dekedahayna Soomaaliya min zamaan kumayaal sano ka hor maxaa lagu yaqaanay magacyaday lahayd qaar badan baa magacyadooda isbedeleen dadka badankood ma garanayaan halkaana waxaa anaka qoray oo imaan jiray Greek qadiimka bay ahaayeen kumayaal sano ka hor طبعا dekedaha qaarkood magacyadooda way isbedeleen qaarna waa in surprise bay ku noqonaysaa nimankaas qadiimka waxaa kamid ah Batilmos طبعا dadka qadiimka ee Greek way dadkan oo dhan xeebaha Soomaaliya way yimaadeen min zamaan as a business ama dalxiis حتى waxaa jiray فيلسوفة taariikh yaqaan ama mu'arrikh juqraafi waxa la oran jiray magaciisa Strabo Greek ninka sawray maababka ugu qadiimsan adduunka caalamka qadiimi laana ku caalamka qadiim ba ka tirsanaan hada Soomaali nahay Cosmas Indigo Blostes طبعا كاسغنا waa Greek magaciisa xogaa adag tahay waa dadkii kamaan xeebaha Soomaaliya mid oo ka qoray يعني حتى waxay qoraan anku inaan nahay barbar okay dark skinned and of great stature يعني dad kalarkooda buniya ama chocolate مع high class waa anaga min zamaan magaalooyinka marka sidee lagu dhawaaqi jiray Greeka hadda inay soo tirinaya dekada Malaw waa berbera Malaw waa lagu yaqaanay dekada Mundus waa xiis Opon waa xafuun Avatelias وزيلع بولحار وبولحار ميس بدلين إسينيا ومركا كونفورتي بانقلنا تونيكي وبراوة مقعيس قديم كا سيرابيون مقديشو نيكون بورغابو وإن شاء الله مقع صحينا الرواقي غوندال كسمايو صدحنا المقالنا هذا ينسو قري طبعا مقعيس وكل رواق وايرك صدح مقالو الصوباني وبسنس ايقنا اكسبورت امبورت لها هانجرتي Greek قديمك nin waxa jira Greek oo la oran jiray Diogenes waa kan business marka wuxuu isku xiri jiray East Africa yani anaga Soomaaliya ilaa Hindiya okay yani business Hindiyo aslan ahaa laakiin waa Greek marka badda ka dhumay magaalo marka oo koonfurta ah wuxuu aaday oo la oran jiray Rabta okay Rabta maanta waa magaalooyin ku yaala Tanzania Kenya waa la dhaafay Tanzania meelaha Zanzibar hortiisa way magaalooyin ku yaala oo kamaan wabile wuxuu soo qoray ninkaas inay halkaas ba xataa ay Soomaali joogaan oo barbars dadku yaqaanaan xukumi jiro business lahaan jireen oo meelahaas qarfaha ay adduunka ay ka dejin jireen yani ka duufin jireen xataa waxa jirtay boqortooyo xukumi jirtay East Africa dhinaca koonfurta yani Kismaayo Tanzania ilaa adoo safar ku socday waxa la oran jiray Azania taariikhdu waxay sheegaysaa dadkaas Afro Asia kan ahayd Soomaaliina ahaayeen barbars ina ahaayeen طبعا maanta taariikhdaas waa la dhacay ummado kala sheegata hawsha la soco saaxiib